السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب تقاليق السود وهذا ملك جبتان ولكن ديق الله أو channel تذكرنا لكم عصبتاي سبسكرايب كلايك شيرتا كومنتيغا waxaan idiin wadaa arrin galabta ka dhacday magaalada Garowe oo arrin fool xun ah. gabdha Soomaaliyeed ee reer Puntland u dhashay Saciid Cabdilaahi Deni uu fadhiyo garoonka gabdhihii Soomaaliyeed ee Garowe joogay lagu bahdilayo xaq miyaa mise waa xaq darro? taa idinkaa idin weydiinaya. arrintanna waxaan uga hadlayaa oo raba inaan gaarsiisaan madaxda Puntland, madaxda Soomaaliya. waxaan leeyahay gabar Soomaaliyeed oo hooyo ah oo muruwa ah oo ku dhashay oo kula dhalatay in aad askartaada maanta u adeegsatid oo saa loola dhaqmo horta waa arrin dhaqan ama diin midna aan ku salaysnayn. Saciid Cabdilaahi Deni waxaan leeyahay madaxweyne waad ceebowday. madaxweyne Soomaaliyeed baa la sheegayay baa rabtaa. anigu madaxweyne Soomaaliyeed Puntland baan ku arkaa oo waxa saa loo bahdilayo oo saa loo jiidayo oo hablihii Puntland meel ku sheeg. kuwii shal la kufsanayay baad meel saar lahayd, meel ku sheegi lahayd. laakiin maanta in ciidankaagi weliba staafkaagi adigoo garoonka jooga gabdhihii Soomaaliyeed ee Garowe u dhashay in saa loogu bahdilo waa arrin qiso fool xun oo magacayo maamuus xumo ku noqonaysa. run baan kuu sheegaya. gabdhaha Soomaaliyeed waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed sharaf bay noo leeyihiin. habluhu waa hooyooyinkood, waa walaalahay, waa noo dhexeen. arrintaasna waxaan leeyahay madaxda Puntland in ay ka soo jawaabto. madaxda Soomaaliyeed baan raba inaad fiidiyoga u gudbisaan. fiidiyowgaana inaad meel dheer gaarsiisaan, leegta iyo sheerta iyo commentiga u badisaan isku daya. Saciid Cabdilaahi Deni hadduu caawa raaxaysanayo oo xaaskiisa hoostiga jiro oo gabadhiisa u fiyowdahay, gabadha saa loo jiidayo oo ciidankiisa u jiidayaan, waa gabar Soomaaliyeed, waa hooyo Soomaaliyeed. magac xumay kuu tahay, samcad xumay kuu tahay. waa inay ka hadashaa odayaashu, boqorka, suldaamada, ugaasiyada, nabadoonnada arrinta gabdhaha ciidankaas ay kula kaceen. dee haddii ay cidla ka helaayeenna way kufsan lahaayeen. Puntlandna wax fiidiyowga lagama soo duubo, laakiin ciidankeedu saasay u dhaqmaan. ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa ciidanka Saciid Cabdilaahi Deni u hoggaansan ee qolka ugu jira saasay u dhaqmaan. dhaqanka hadduu saa yahay hablaha in saa loo xumeeyo aad baan uga xumahay, aadna waa ugu gubtay markaan fiidiyowga arkay. adiga daawanaya maxay kula tahay haddii aad sax u haysatid wax kastoo ciidanku ay sameeyaan, wax kasta oo maamulku uu sameeyo, saana hablaha loogu bahdilo, hooyadaana ogow in la bahdilayo, walaashaana ogow in la bahdilayo. aad baan uga xumahay. aadna waa idin salaamaya meel kasta joogtaan. fiidiyowgaas waa 12 habeenimo. waxaan ugu talagalay asxaabteyda inaad qaadaan u geysaan madaxda ilaa Saciid Cabdilaahi Deni ilaa arrinta haddaan wax laga qaban wallaahi bilaahi tullaahi samcad xuma inay tahay.